kulan wacan saaxiibayaal halkani waa Caasim Media ku soo dhawaada qisadii jacayl ee taxanaha inoo aheeday Mahdi Maandeeq qaybteedii 16aad. Maandeeq aabaheeda wuxuu ka xumaaday arrinta uu Mahad kala kulmay. Lama murmi karo lamana doodi karo oo odayga sumcadiisii baa dhulka taala. Waayo gabadhiisii ayaa uur aanan la ogeyn oo la isku tuurtuurayo sida. wuuna ku qasban yahay inuu aamusnaanta iyo xishoodka maciinsado. Isaga oo wejigiisa hoos geynaya murugna ay ka muuqata ayuu odayaashii ku yiri, gabadha anaa dhalay ilmaheedana waa kayga, anaa korsanaya waxba idinkama baahni. wuuna iskaga tagay. Maandeeq waxaa wax walba ugu xanuun iyo murugo badnaatay markay ogaatay Mahad inuu soo xumeeyay isla markaana uu ku inkiray uurka. Dadka Soomaalida ahi wax ma fahmaanay kolkay maqleen in uu Mahad uu gabadhii ku inkiray uurka ayay maalinba laba islaamood ayaa inta ay u yimaadaan Maandeeq ku yiraahdaan, eedo bal nin kale oo ku tagay soo xasuuso ilaan ilma abtir la'aan ma fiicne. sida iyada oo Maandeeq ahayd balibiyood oo laga wada cabo. Maandeeq markay u adkeysan weyday hadallada xanuunka badan ee sida joogtada ah kaga imaanaya bulshada iyo murugta ka muuqato waalidkeed ayay go'aansatay in ay wacdo Mahad oo ay ka codsato inuu ogolaado ilmuhu inuu isagu dhalay, balse guurkeedii uu diido. ugu yaraan si ilmaha waa in hebel loo dhaho, isla markaasna looga yeerayo dhaga hadalka faraha badan ee kaga imaanaya bulshada. Xataa ilmaha biilka ma rabo oo anaa korsanaya ayay ku tiri. Balse Mahad isaga oo aad isku xanaajinaya ayuu cay iyo aflagaado ku canaantay gabadhii sida sharafta leh u xanaanay jirtay. bal fiiri maanta waxay baryaysaa iyada oo ilmeynaysa, isaguna waa u aflagaadeynaya. kaliya waxa ay ka codsatay in uu sheegto isaga in uu dhalay ilmaha. waa abaallaabe aan arxan lahayn. duruufahaasi adag iyo xaaladahaasi qalafsan Maandeeq waxa ay ka dhigtay qof kale. cashar adag oo nolosha ahna waa ay u noqotay. waxay isweydiisay yaa kuu maqan horta, oohintase maxaa kuugu imaanayo. naftaada in aad ciqaabto maxaa faa'iido ah oo kuugu jirta. dadkani ku dhibaya xaqiiqda miyay ogyihiin. haddii ilmo alle ku siiyo korso oo toobadkeen, qofna hadal ha ku darsanin ayay niyadeeda iska tiri. Maandeeq waxay go'aansatay in ay samayso isbeddel nafsi ah oo aysan nafteeda intaasi in ka badan sii ciqaabin. dhowr isbuuc ayayna seexanin oo ay Allah subxaanahu wa tacaala baryaysay iyada oo oynaysa. Maandeeq iyada oo sidaasi u cibaadaysanaysa ayaa waxa ay dhashay wiil, waxayna u bixisay Cabdiraxmaan. la soco qaybtii xigta hadduu Rabbi raali ka noqdo. daawade muuqaalka ilowin inaad like inoo saarto, channelkana subscribe dhahdo, siina share garay si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale.